ilaahan kan magan galnay kuwa caqiidadooda inaan qaadano ilaahay baan weydiisanaynaa kuwa inuu naga badbaadiyo toobadoodana xataa ilaahay aqbali maayo sida xadiista nabiga ku qoran alayhi salaatu wasalaam ma aqbala ayuu rasuulku laa yaqbalu allahu ilaahay aqbali maayo ruuxa mubtadica tooba ilaahay ka aqbali maayo salaada hadduu tukado ilaahay ka aqbali maayo hadduu soomo soonka ilaahay ka aqbali maayo hadduu zaka bixiyo zakada laga aqbali maayo yadcuuna ilaa kitaabillaah dadka waxay ku hayaan kitaabka ilaahay imaada kitaabka ilaahay ay ummadda ku qaldayeen waa midka gabdhaha ay maanta leeyihiin xitaa dharkoodii hoose ay ka hadlayaan xishood darro meeshay ka gaareen halkaasay marayaan oo gabdhaha sigisaantoodii ay ka hadlayaan oo dharka hoosoo dumarku ayagu ikhtiyaar ay leeyihiin inay qaataan bay ka hadlayaan oo wiilasha masaakiinta gacmahoodii ay bilaash u jarayaan oo odayaasha waayeelada dhagaxa ay la dhacayaan oo gabdhaha saqiirada ay dhagaxa kala dhacayaan madaxa oo qofka inta soo qabtaan ay leeyihiin allahu akbar sida inay joogaan ciidul adxa inay marayaan badumooda ciidul adxa badumooda inay marayaan ciidul adxa waa meesha ay maanta marayaan oo heerka ay gaareen waad u jeedin walaalayaal nabigeena markuu ka digay bal u fiirso yadcuuna ilaa kitaabillaah walaysuu minhum fii shayin dadka waxay leeyihiin kitaabka ilaahay ayagu waxba kama haystaan buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iimaankooda dhan maxaa la yidhi laa yujaawizu iimaanuhum xanaajirahum iimaankoodu halkaa hungurigaa ma gaarayaba halkaa hungurigaa ma gaarayo nin walba uu isberiyeelaya wuxuu ku leeyahay dadka caamada waxyaabaha hadda ay ku qaldaan waxaa ka mid a maya annagu waxaan nahay ahlu sunnihii baan nahay ku leeyihiin ma intaas qaladahoon soo sheegna ahlu sunno lagu noqdo walaalayaal intaas qalada qof aaminsan oo meel la taagan oo baadilka ummadda u sheegaya salaadii aan u gudubna marka salaadda maxay u geysteen waxaa laga yaabaa in lays yidhaahdo mar walba oon bidcadii iyo meelo laga sheekeeyey salaada ma laga sheekeeyo oo soonka ma laga sheekeeyo waad ogtihiin walaalayaal salaada annaga mugdi noogama jiro salaadu waxa weeye waa tiirka labaad oo arkaanta islaamka aan si fiican u tukanno ku dadaalno salaada markaad tukato ajirka leela waad ogtihiin salaadu waa shayga ugu horeeyo addoonka qiyaamada laga xisaabinayo laakiin kaba ha ku tukan laakiin adoo nijaas wata ha tukan ilaa nabigeenu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yaqbalu allahu salaatan biqayri dahuurin ilaahay salaad aan dahaaro lahayn ka aqbali maayo ina allaha yuxibu altawaabiin wa yuxibu almutadahiriin ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa isdahiriya oo daahirka iska dahiriya oo baatinka iska dahiriya oo nijaasta xisiya macnawiya loo qaybiyaahe mid muuqata iyo midaan loo jeedin kulli iska dahiriya ilaahay baa jecel nabiga ilaahay baa qur-aanka noogu sheegay aan iska dahirino baatilka hadda dhulkaa bannaan meeshaa waxa weeye aan gogasha lahayn oo kabaha lagula taagan yahay oo eeyuhu hadday rabaan jidka ay maraan oo hadda laga soo galo hawlka aan ku jirno adigoon gogol iska dhigin oon mara fidsanin salaada maqrib hadday soo gasho ama duhurka uu soo galo ama casirka la gaaro ma ku tukan karnaa maya ma la ogola in lagu tukado ma samay karnaa sigisaanta inaan masaxano oo waxa weeye aan sigisaanta inta iska masaxano waxa weeye aan iska tuktukanno ma suuragelayso iyaduna ma banaana ayagu marka fiiri salaadii ma aysan nabadgelin dadkii waxay amreen sidii raba in laga yeelo maxaa noo baaqi ah marka maanta salaadii waxay dhaheen sigisaantaad iskaga tuko hadda khufka nabigu uu sheegay sigisaan maahan waa shay kaba ahaan loo isticmaalo oo lugaha inta la weese qaato lagu xirto oo asaga kaba ahaan loo isticmaalo lagu socdo oo nijaas aan lala marin oo markii biyaha sidaa dusha looga shubo lacalla haddii biyo lagu shubo aysan biyuhu ka dusi karin wa an yakuuna maanican linufuudi ilmaa shuruuddiisu ka mid yaha qofka
وإنه هذا شيء منعن كرا إنه بيكدسان إلا محل القرس إليهم إلا ما شو كتو ليه ماهاني سيجسان تنبيوه كوذا الدسيان أو بركة لا تكون في معنى الخف خفك النبي محمد شاقي يعني لا يبنكو قلب سيجسان ماهين صلى الله عليه وسلم نبي قالنا عليه الصلاة والسلام كبن نجاسة صلاة كمتكن بدعدنا كبن نجاسة يقول وتيتو كذان مركب ما بكو حرا كرنا صلاة ما بلغو حرا كرابا حتى وحي كهد لأن علماء الإسلام قبضنا هذا إن لو قري أن يسبنانين منين أورانا يا النبي محمد سلقي سيادن بها قبرسي سنيسين منين نبي محمد توحيد كيسي إلهي توحيد كيسي أما قرآن كي إلهي جامع قرآن كوابوك بوك أورانا يصابلك وطورية ما تقبلني إنه قرتين إلهي وصاب حرمة رأيه ما قبلني إن النار لدونيسين ولا ليال إلهي أن كعب صنو أدون كان لتشوغي مايو ووصية ودردارا ودحلك الرسول كعلماء وحي نوشيغيس عليه الصلاة والسلام قفكي ما أنت فوضيست يرى لبا علماء اسخلاف سنات أنوغو ميلا آدم ما قان ما كم بان راعة مسا كم بان راعة نمبا هذا كورنتا لهذا لبا وحو يري أنوغو نمان كاس ميلا كقاتو يري أهل السنة أنا ميلا كقاتو يري أيها وحن كقاتبو يري وحوال بفضيت كان كنت على هذا الشقة بكابا قم يسابو يري أضيقوا حتى الشقينا وحي كليهين شقة هذا يسكوضو عاود اسكا دمايستيرانيه صلاه شقada iska waday kuleeyihiin buu yiri kabaha iska siibina gacanta saa u mari bish dad weesaqa gacanta bis kale korka mari iskana tuko ayuu kuugu jira waa fudayd wax walbaaba gurigaaga marka tagto zawjadaada iska salaan daamanka kadhunka hadhowna iska tukada saad u qosleeyeen malin iskaga joogtiin dibba malahanba laakiin wuxuu radad ahlu sunnatihiin dibbaad noo disheen buu yiri aniga leegu yiri qof kale macna kama hadlayo hada walaalayaal diinta ahlu sunna ma leh ilaahay baa leh shakhsi malahan sheekh fulana ma leh sheekh fulana ma leh awwal ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyamah as-salat bu nabiga leeyahay alayhi salatu wassalam hadaad kaba kuntu kala haydeen nijaasa iyo hadaad ilaahay ka baqi lahaydeen oo salaada sax u tukala haydeen qof walba adiga iyo salaadaada ilaahay baa kula xisaabtamay aabaha ku raaci maayo hooyada ku raaci mayso qabriga waxa kula galaya waa amalkaaga oo kale ah yatba'u al-mayyit thalathatun yarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid buu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wa sallam saddex shay baa qofka marka qabriga loo wado qabriga u raaca saddexdaa shay waxa kugu haraya waa amalkaaga kale ah waa adiga iyo salaadaadii waa adiga iyo caqiidadaadii waa adiga iyo tawxiidkaagii waa adiga iyo salligaagii haddii aadan adduunyada markaa joogto ilaahay ka baqi jirin oo addoon dhowrsan aadan ahayn qiyaamada maxaad ilaahay la hortegi doontaa walaalayaalow ilaahay aan ka baqno oo salaadeenna aan hagaajinno yaan diinta bidca lagu hadlayn yaan diinta bidcada lagu hadlayn dadka diinta qaldiga yaan diinta lagu hadlayn yaan dugsiyadooda waqtiga lagu lumin ilmihiina meel halaag ah geynina walaalayaal meel lagu halaagsano ilmihiina geynina oo naftiina halaag ha u jiidinina oo maanta waxaad ogtihiin maalin dhow baan naloo sheegay nin kismaayo jooga oo qoladan bidcada kamida aabihi baa dhintay baa la yiri markaasuu yiri ka qayb gali ma janaasada aabahay maxaa dhacay baa la yiri gaal buu ahay buu aabahay waxaasi ka dhaadhiciyeen waxay ilmihiinu gaari doonaan janaasadiina inay ka qayb gali waayaan wardi ay ku akhriyaan iska dhaaf quraan ay ku akhriyaan iska dhaaf hatta hooyo inay ku tukan waayaan aaba inay ku tukan waayaan maxaa ka xumaan badan walaalayaalow mawduuca waan soo koobaya waxaan ku soo koobayaa bidcadu raadka ay noo geysatay waa midka dalkeena rogay waa midka dadkeena gubay waa midka diin la'aan taajiyay waa midka soo banaheen nagu diray walaalayaal ilaahay aan ka baqno aan iscafino aan diinta ilaahay u wada gargaarno waxaan hadalkayga ku soo koobayaa ilaahay cabsidiisa isku dardaaranno ku xirnaanta nabi maxamed isku dardaaranno
kudayashada culummadeennii wanaagsaneed oo markay nabiga magaciisa sheegaan ilimay jiray jacayl inta nabiga uga qabaan calayhi salaatu wasalaam magaca nabiga markay sheegaan ilin soo daadi jiray oo kitaabka qur-aanka dhunkoo jiray oo looxa kor u qaadi jiray intay jacayl uga qabaan oo culummada ixtiraam intay ugu qabaan labada gacmood ku salaami jiray oo qofka u ducay jiray ee ducadooda la heli jiray ma ku dhaganaanaynaa walaalayaal ma ku dhaganaanaynaa wadadeennii wanaagsaneed mase bidcaan raacnaa walaalayaal kala doorta wax laysdoorigeliya maanta ma aha allahuma wafiqnaa lisawaab allahuma wafiqnaa lima tuxibu watardaah allahuma inaa nasaluka xusna alkhaatima allahuma inaa nasaluka min khayri ma sa'alaka minhu nabiyuka muxamadi sala allahu calayhi wasalam ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متكاسوح وها شيخاني شيخ محمود إلهي أجري حسنا هكسي موضوعي آدي نوعا فعي بدعادة إيرادتك إذا كهلي أنت اسمه قد ماضي